بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت وحن مقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو إسقى يسأل لويدين عن الماء بيه حقه بياسو يكون أهانا في الفلات meelaha saxaraha dhulka cidlada ee saxaraha la yiraahdaa ee la degan bahgooyada oo yusallu isagoo la weydiinayo ayaan maqlay buu nabiga la weydiinayo aan ilmaa'i oo yakuunu ahada fil falati meelaha saxaraha dhulka cidlada oo min al-ard dhulka kamid iyo wama shayga yanubuhu biyaha ku kaltamaya oo min as-sibaahi muxuu ahaayay duurjoogta ama dugaaga oo min as-sibaahi dugaaga iyo wadawaabi waxyaalaha dhulka ku korsocda faqala markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ida goorti kana uu hado almaa'u bihi qullatayn laba ashun lam yahmil mahambarayo al-khabatha وسخذ أما النجاسة ما حنبار سنين بمعنى ما أقبل يوم روح وري الخمسة شنتي باوري وفي لفظ كلوحة كسغا وفي لفظ ابن ماجه لفظ سوحة كسغا ورواية لأحمد هي رواية أحمد أوليه وحا كسغا لم ينجسه من نجاسين يشيء محمد نجاسين بمعنى وفسر يا لفظ قاس لم يحمل الخبث يعني نجاسة ما حنباره معنى هذا محوية هي لم ينجسه شيء لفظ قاس ابن ماجه رواية لأحمد أيها فسر بمعنى من نجاسه بوه لم ينجسه شيء وحمل نجاسيه ما ينوبه هذا معنى هذا وحوي وما يرد عليه نوبة بعد أخرى ويعني كلتن كاليلا سقدم بينت قلب قصون نقشده كفوليتان كقصون نقشده ساسا لغا ودا معنا سباعنا waxa la yiraahdaa dugaaga khaasatan midka micida ee dadka iyo dunyada iyo xayawaanaadka kale iyo weerara ayaa la yiraahdaa inta badan loo isticmaalaa sida libaaxa iyo yeeyda iyo muxuu ahaay shabeelka iyo waxyaalahaas waxa kale sibaaca lagu iطlaaqay ayadana shimbiraha ayaguna ciididooda wax ku waarsada ee wax dila iyagana waa la yiraahdaa dawaabtana waxa la yiraahdaa dawaabtu macna khaas ah mid caamilada waxa laga wadaa xayawaanaadka dhulka ku kor socda waxa kale soo gala waxyaalaha xamaadana waa loo isticmaalaa marka waxyaalaha duurka ku nool oo dhan baa biyihii ka cabay oo isaga daba noqonay taasa nabiga la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam biyaha duurka ku jira ama waraha iyo balliyada ku jira ama meel kale tar ku jira kaasuu nabigu wuxuu ku jawaabay sallallahu alayhi wasallam ida kana al-ma'u qullatayn wa tathniyatu qulladana waxa la yiraahdaa hiya al-jarratu al-kabira lilah al-jarratu al-kabira wa ashunka weyn oo min al-fakhar oo dhoobo la dubay laga sameyn jiray saasa la yiraahdaa macna waxa lagu jamciyaa qilaal baa lagu jamciyaa qullataynkaasi marka qiyaastooda maqaayista casriga ah waxay leeyihiin waxay u dhigmaan 200 litir yani halkii qullo waa 100 litir labada qullo marka la isku darana waa 200 litir bay leeyihiin meesha ay kutubta shaafiiciyadu ka dhigi jireen weeye 500 رطل بغدادي تقريبا واغا رطل بغدادي غابay wax ku qiyaasan jireen oo ku miisaan jireen laakiin wixii hadda waa isbedelay oo litir kaas loo isticmaalaa waxyaalaha maa'ica dareeraha marka taayada way macna qullataynku marka saasay ku iimaanay ilaa 200 litir taqriiban bay ku qiyaasan biyuhu haday marka heerka gaaraan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam lam yahmil al-khabatha معناه waxa weeye ma nijaaso ma xambaaro waxa laga wadaa bimaana ma aqbalo
shayga markaad xambaarto markaad aqrisho wuu iska celiyaa biyuhu hadday qullatayn gaadhaan dabcan iyo wixii ka siyaasan nijaasada ku soo dhacday iyo xayawaanaadka ka cabeeya iyo dugaagga ka cabeeya nijaasada ka imaanaysa isagaa iska reebahayo ma xambaarsanayo ma aqbalayo kama tan badan karto macna ma saameynayso saas laga wada saas daradeed baa lafdiga ibn maajah iyo ahmed lam yunajjishu shay ay cabireen macnahuna waa isku mid weey macna lam yahmil alqabd hiya lam yunajjishu shay isku macna iimaanaysa macna طيب حديثك محوها وحديث صحيحة ووحى صحيحي علماء فرضا حديث كاس إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث حكم إذا علماء الصحيحية الإمام الشافعي طحاوي دارقطني ابن منده خطابي ابن جوزي عبد الحق الأشبيلي بيهقي الإمام النووي الذهبي ابن تيمية ابن حجر شيخ الباني غير كود علماء قاركود بوحي كعليان اضطراب في السند والمتن لكن ولا جت جوابي أجيبها مركز آخر السوق وقنعينيسا أيها لقيت جوابي حديثك وحديث صحيح وحوفا إيدينا يا وحوفا إيدينا يا لا مسألة أما كبضا سندك وبعد وإيمان دون طاير دقاق دورك كنولي إن على يدي سئية أفكي سئية أي نجاستها هاي وفائدين تاسباب كذا لكن وكين دون سعود لشني هكذا لكن وحالوك هنا بيه حديثك أبي سعيد كان كفرين حال الدرس قال له قدام بيه نبي مركي لو يدي صلى الله عليه وسلم حيري الماء طهور لا ينجسه شيء وحمام النجاسيا بيه حديث كاسي وحي ان العموم كيسا وحا لغا قاطي بيوه اما هيرادين اما هبضنادين نجاسو غاداي مبا نجاسي سبا عموم كان وحا خصيصي بينو نري اجماعه oo haday biyuhu awsaaftooda saddexda mid kamida isbedelo inay nijaaso noqonayaan ama habadnaadeen ama hayraadeen wala isku wafaqsay ijmaacaasi marka cumuumka uu khasisi waa xaalada biyuhu isbedelaan haday isbedelin ama hayraadeen ama habadnaadeen waxaan soo sheegnay xadiiskii hore wuxuu ku tusayaa inayna nijaasoobeen nijaasaduna ayna saameyn ku lahayn xadiiskani marka muxuu sheegay xadiiskani wuxuu sheegay biyuhu buu kala qaaday haday laba qullo gaadhaan طبعا يوحي كبدا نجاسده غاريتانkeedu waxa ma saameynayso halka muxuu kala mid yahay xadiidka Abu Sa'id sooma biyo haday qullatayn iyo wax ka badan yihiin nijaasadu ma saameynayso mana nijaaseynayso waxna kama qaadi karto inta biyuhu markay leeyihiin xadiidkan iyo xadiidka Abu Sa'id isku meel bay ka istaageen sooma muxuu xadiidku ku tusay mafhuumkiisa ma aha mantuuqiisa mafhuumkiisu wuxuu ku tusay biyaha wixii qullatayn ka yar inay nijaasobayaan markay nijaasadu gaadho laakiin wuxuu kugu tusayaa macnahaas bil mafhuum wali mafhuum al mukhalafa la yiraahdo ee mantuuqa ma aha منطقة وحو كتصي وقلتين كي وحي كسياسا إنيسا نجاسة ساميني لكن تاسا وحا لغا فهمي قلتين كوحي كير إني نجاسة ويانو أي ساميني سمعنا تاسو مركا كتصيها ومعناها سالغا فايدي سنة بيوهو هذي قلتين مركا كير يهين إني نجاسة قارتان كيساء قاردبا أي نجاسة ويان أما هيس بدلين أما يسر اسبدلين سيداسي أيا وحا كتغي الإمام الشافعي عليه رحمة الله إيوه أحمد يغير كوضه معنا أويك القادين أيوه حديث كان حسكان يا وحي ليه بياه حنوك القادين بيير وهذين نتشاسدوا قاردوس نتشاسوا بيا أما هاي سبدلين أم يسبدل بيا بضن ونتشاسدوا أيناً وحبك قاري كريم يرانتي يا بضنانتي روحان كوكا للسوع أيناً حد وقردقينا حديث كان تحديد كقصة أراري أو قلة وحي كسياسا قلتين وحي كسياسا وبيا بضم قلتين كوحي كيرنا وبيير سيداسي كدغ مسألة بيها إن بيير يا بيا بضم الله كلا قاضع ومذهب الجمهور
laakiin waxay isku kala tagayaan biyaha yar iyo biyaha badan qiyaasto sida mesela Shaafici hadda Ahmed ay mareen waxa khilaafsan Xanafiyada oo waxay leeyihiin biyaha badan waxa la yiraahdaa biyaha markii dhinacan laga dhaqaajiyo darafkan laga dhaqaajiyo darafkooda kale uu san biyaha dhaqaaqoodu gaadhay haddii dhinacan markii laga taabto dhaqaaqii uu dhanka kale gaadhayana waa biyaha qiyaastaas iyaguna mareen waxay isku waafaqsan yihiin biyaha yar waa nijaasoobaya bimulaqaati nijaas sidaas ay ku tageen in la kala qaadana waxaan nidhi waa madhabka jumhuurta waa jamaahiir ahli ilmi baa sidaa ku tagay oo muxuu ahaay u badan mas'alada markii la yiraahdo adiladeeda ha loo laabto xadiistana hal is waafajiyo say isku waafaqayaan horta xagee labada xadiis ay iska khilaafsan xagee isku haystaan biyihii hadday badan yihiin oo qullatayn iyo wax ka badan ay yihiin waa isku waafaqsan sooma inaysan nijaasa saameynaynin way isla ogol yihiin labada xadiis waxay isku haystaan biyuhu hadday yaraadaan oo qullatayn ka yar yihiin nijaasana gaadho yey labada xadiis halkaasay iskaga hor imaanayaan daahirkooda xadiiska abi saciid wuxuu leeyahay ma daahir mise nijaasu leeyahay ya xadiiska abi saciid wuxuu leeyahay waa daahir xadiiska qullatayn-kuna mafhuumkiisu muxuu leeyahay waa nijaasoobaya halkaa way horta meesha isku qabsanayaan markay saa isu qabsadaan oo juz'iyada isku qabsadaan baa waxaa imaanaysa hal kala rajaxo dilaalada labada xadiis waxaa lagu kala rajaxayaa xadiidka Abu Saciid al-Khudri ee yiri man nijaasoobaan biyuhu dilaalada uu xukunka kugu tusay waa mantuuq laana waa caam cumuumkuna dilaaladiisu waa dilaalatu al-mantuuq wa xadiidka qullatayn-kuna dilaaladiisa uu ku tusay xukunka wixii qullatayn ka yar inay nijaasoobaan dilaaladiisu waa mafhuumul mukhalafa haddii mafhuum iyo mantuuq iskhilaafana yuqaddamu al-mantuuq ala al-mafhuum وبالتالي halka waxa ka soo baxay xadiis abi saciid ba ku xoog badan juz'iyadaas oo kaga xoog badan mafhuumka xadiiska qullatayn sida haday noqoto waxa soo baxay khulaasada iyo natiijadu noqonaysa biyuhu hatta qullatayn haday ka yar yihiin man nijaasoobaya oo nijaasada gaadhay kuma nijaasoobaya laakiin maxay ku nijaasoobiyo lisla ogolya oo labada xadiis ba takhsiisinay ijmaaca oo haday isbedelaan labada xadiis biyaha badan dilaaladooda waxa takhsiisinaya ijmaaca oo haday biyaha badan isbedelaan waa nijaasoobaya biyaha yar inaysan nijaasoobeynin oo dilaalada xadiiska Abu Saciid al-Khudrina sidoo kale waxa takhsiisinaya ijmaaca haday isbedelaan haday biyuhu isbedelaan marka meel iska dhig urkooda dhadhankooda midabkooda haday isbedelo oo nijaasa bedesho taa meel iska dhig ijmaaca khasisaya xadiiskeeduna waa daciif aan ku soo aroray laakiin ijmaaca mu'tabar ama hadayna biyihii isbedelin midabkoodii iyo dhadhankoodii oo saaftoodii aan isbedelin biyo qullatayn ka yarna ay yihiin nijaasana ay gaadhay ma isbedelayaan sida daliil ahaan raajixa waxaan dhihi lahaa ma nijaasoobaya ma gawr sida daliil ahaan raajixa maya li umumi xadiisi abi saciid al-khudri oo dilaaladiisu ay mantuuq tahay kana xoog badan dilaalada xadiiska qullataynka mafhuumkiisa ka xoog badan sidaasa muhaqqiqiintu marayaan وبالتالي khulaasadu waxa weeye biyo oo dhan inayba isbedelaan mooyee ma nijaasoobaya warka halka ka qabsaday warka halkaas gabagabo ku leh وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وحولي لا يبولن يوسن كاتشن احدكم مسكين في الماء به يسكن كدحكاتشن الدائم فديي الذي بها لا يجري عن سعن الذي لا يجري جمله سوى جمله تفسيريه ومحي فسرت دائم كيف فسرت في الماء الدائم به فديي الذي كاسو لا يجري عن سعن وان لبوسي عدينا ولا صفه سريا ثم كذبنا يغتسل او قبيسنا فيه دحديسه او قبيسنا مكو كاجنا
كدب أو كده حكبي سنة يسيلي ومعنى روح وري الجماعة جماعة دورية بمعنى واحد لقى وذا وكان صومر ليه إنه مخورتان الديدين أنت كده حكادي حدنا كده حكبيس ساسة الديدين لا وضع بينات كل مس وهذا كان ينوح للفظ البخاري لفظ يسوي لفظ البخاري بقوله ماشي يلا ولفظ الترمذي لفظ يسوي ثم يتوضأ منه أو ثم يغتسل فيه ده أي بدل كده وحوي هي ثم كذب نمركو كوكاتشو كذب يتوضأ وكويس قادنا يمينه حجز وكويس قادنا انتو كوكاتشو حدنا إنه كويس قاتل يسيالي ومعنى ولفظ الباقين بخاري الترمذي انت كسوها لفظ بود وحوي ثم يغتسل ثم كذبنا يغتسل منه حجز يسكى قبيسا ثم كذبنا يغتسل هو يغتسل وقبيسنا يا فيه بيتيه راه تنوى منه كلي حروف الكسين منه يفيه مع فرق يودعي وعوي لا يعني ثم يغتسل فيه ودح قريب بيها إن دح قشوا لا يغتسل منه وحي جدا انتهي حتى فتودي أبو هريرة وإن دردرسته وقعمها صودر درسته أما أنت تجرب تاكتوال كي صودر درسته تاسو جديد صما مركا منه ذو وحجز فيه ودحدث هذا معنى الكلام هذا معنى طيب حديث كان محوق كان ماشي حديث كان محوق ماشي كان هذا هو دليل شرعي لما صامرنا واحد دليل شرعي علماء قضاء بيها ير حديبا نجاسة تابته نجاسة مركي ساء تابته وين نجاسة بيها طيب نجاسة مركي جانبه وين نجاسة بيها بيه مرة يريهين قلتين كيريهين ولا ده تدريش وحاجات كقاعدتين بالي إذا واحد كقاعدة النبي له كاكو كاتشن مركز كوكا إذا كذبنا أتقول ظهر قاعدنيس وحلود ديني بيها إن لقول حكاتشو علشان كاريد ونجاس هذي قاعدنا وين نجاسين بيها لقاها الله ينوى بيها يركع ساسيدا بيها يرئين مركز نجاسو بيان هذي بالنجاسة دي لكلنتو أيو حديث كتوس يا بني ساسيد للشدين وليها أنا صوت المعنى سلاقة معايا الوحيدين علة اللود دي إن لجو علة النهي وخوف التنجس نجاسو بيت بالغ بقية لكن واحد لقيت شو هذا حديثه هرت بيجر بدل ما كان قاضي حاجات كنتين إن حديث كان يكه الله يبيها يا الأنبياء دائما بيفرق يوم بحديث كده صوما بيفرق هدوء الكوير نوي نقون كران كوا بدل نوي نقون كرانه حاجات كنتين الحديث كان يحكوا ساسين هي بيها ير تخصيص كحاجات كنت وامد الله بعده علده إن يتهي عسير لقى عصنا علده النهي إن العلة خوف التنجس إن يتهي حاجات كنتين علده إن يتهي خوف الاستقدار بعد عكس إن لقولوا صدوا بيها مركي لو كاتشو عبيتان كودي استعمال كودي ضدكو أي كي يقصدان وقفصدان تا إن علده تهي بصروبي كريس marka cilladii aad sheegateen cillad la isla ogol yahay ma mid kala suroobi karto meesha ku jirta biyahana takhsiiska kuwa yar ku khasisteen meesha wax ku cad ma jiro wabitaali mar haday sidaas tahay waxa kale suroobi kartay leeyihiin nahyigan biyaha laga reebay in lagu kaajayna macnaheedu tahay dadku yar ka waswaas cilooyin fara badan baa dhici kara mar sidaas daraadeed xadiidkani naskuma aha biyaha yar hadayba nijaasa gaadho inay nijaasoobaan oo masalada loo daliishaday naskuma احتمالات كلام بربدان باقي كريا معنا طيب وفي حديث الشيخ يقول مرك ومن ذهب عندي كتكتي إلى خبر القلتين حديث في قلتين عندي حقي مرتي وسيدو كتوسهايي قادتي ومحيئة إن بيها الله كلا قادة قلتين يوحك سياسا ونجاسوبين يوحك يرو نجاسوبين بالملاقات حديث كعدي قادتي ومرتي حمله وحو حنباري هذا الخبر حديث وحو حنباري على ما دونهما قلتين كوحي كهوسي وحنباري وكيا وخبر بئر بضاعة حديث بئر بضاعة أبو سعيد وحي كحنباري على ما بلغهما وحي قلتين كجارة جمعا كل من درتين
bayna alkulli xadiista dhammaantood la kulminayo adigu ogow waa faham culimo ah qoladani waxay leeyihiin xadiiskan meesha biyaha fadhiyaan yaan lagu kaaje علشان wuxuu ka hadlayaa xadiis biyaha yar ee qulataynka ka yar sababtuna way nijaasoobaya xadiiska abi saciidna waxaan ku xambaaraynaa ceelkii bi'ir budaaca ku saabsanaa waxaan ku xambaaraynaa biyaha badan la yunajisuhu shay biyaha badan ba laga hadlay sidaasana xadiista ugu wada camal falaynaayo kuwa yarna way nijaasoobay kuwa badanina ma nijaasobayaan inay isbedelaan mooyee sidaasay marayaan qolada ra'yiga ku tagtayna oo soo sheegay tayib laakiin sidaasi wuxuu socon lahaa oo sax noqon lahaa markii lala ogolaado xadiiskan biyaha fadhiyaha ku kaajina nahyigu inuu yahay ciladiisu khawfa tanajjus si ayna u nijaasoobin ciladu inay tahay hadii lala ogolaan lahaa jamca sax buu noqon lahaa laakiin tiibaan lala ogolayn oo yaani wax weeyaan laga doodsan hadii laga doodsan hayna jamcani ma soconayo xadiidkana dilaaladiisu meesha kuma cadda xadiidkii hore qulataynkii kii abi saciidna waxaan ku jamcinay si kale sooma oo dariiqadii ahayd yaani waxa xoog badan dilaalada xadiidka abi saciid baa ka xoog badan xadiidka qulataynka dilaaladiisa bi khusuus fiihu marka yariye sooma oo meesha labada xadiis ay isku haystaan macna باب أسعار البهائم أسباب أسعار البهائم ها حولها محوها هاي هم بضوضة نجاسني كذا أي باب وحدي لا حكم كذا أي باب أسعار كاس وجمع سؤر سؤر كان واحد هذا ووحي ويلك مركا لعبه كسوحان ayaa suurilaa waa hanbada bahaa'in kan marka hadda kama wada xoolaha la dhaqdo laakiin wuxuu ka wadaa taqriiban wixii aan ibn aadam ahayn khaasatan wuxuu ka wadaa yaani wax wada dugaag saas hadda uu isticmaalay baabu as'aari albahaa'imi bahaa'imta hanbadooda ayuu baab yahay iyo xukunkooda markay biyaha intay cabaan ay afka ka qaadaan ma daahir ba mise waa nijaas حديث ابن عمر ابن عمر في القلتين كسا أروري لبدا قلو يدل وحو كتوسيا على نجاستها دقاقة هنبديسو إني نجاستها يبو كتوسيا وإلا هدوسا معناها كتوسين يكون وحو نقونيا التحديد حديدا بالقلتين اللي حديدي في جواب السؤال سؤاشي صحابة الجواب تودا قلتين كحديد والنبي كحديدي طيب عن ورودها على الماء أروريد أي كسو أروريسو السباع على الماء أي كسو أروريسو حديداتي عبثا بين نقول لهي وحان معنى لهي يعني وحو كوضا حديث كقلتين كابن عمر هذا صومرني سؤاشي سماه النبي الله دقاقة فيها بنانة فردية كسو أروري يالو يدي صومه بركاسو يقول هذي قلتين بيه قاران من يتشاسوبان maxaa meesha ka faahday marka waxa laga fahmayaa dugaagu xoolo biyaha uu ku soo aroorayay ka cabayo inuu nijaasanayo وإلا jawaabta sida ma ahaateen jawaabtu waxay noqon lahayd dugaagu waxba ma nijaaseeyaan saasoma laakiin jawaabtu markay noqotay biyuhu wixii qollatayn ka badan ma nijaasoobeyso بمعنى وحو فائدين يا وحي قلتين كير دغاغو انو نجاسيني سوما حديث ابن عمر ساسو marka kugu tusaya dugaagu haduu biyaha ka cabo inuu nijaaseeyay khilaafkii ku jiray waa gali marka waa biyaha yar kuwi qabay ama sidii aan rajaxnay muhaqiqiin badan ay marayaan biyaha yar iyo kuwa badan toona hadayna bedelin dugaaga cabaya hatta hadii la waa nijaas ma nijaaseeyay sida uu qaabku marka sheekhu u dalishanay waxa weey حديث ابن عمر او في القلتين كسو اروري يدل وحو كتسيا على نجاستها دغاغ اني نجاسيه والا هذيك لا يكون وحو نقونيا هدينا سيده معناها اوسن كتسي لهي او معناها لولا جيدين يكون وحو اهانيا التحديد بالقلتين في جواب السؤال سؤال جوابته او نبي قلتين كحديده
can wuruudihaa la weydiiyey cala almaa'i can wuruudihaa jaari majruurku su-aasha ku tacalluqaya saas way macnaa fii jawaabi su'aali su-aasha jawaabteeda can wuruudihaa la weydiiyey cala almaa'i ay ku soo aroorayaan taxdiidkaasi cabasan buu noqon lahaa hadduuna macnahaasi uusan ula jeedin macnaha madhab daa'ifa min alculamaa weeye in ay dugaaga duurka ku nooli afkoodiiyo carabkoodiiyo uu nijaaseey waxay afka geliyaanna nijaasoobay macna ayib laakiin sidaan hadda soo rajaxnay xadiidka abi saciidna ku tusayey ina almaa'a tahuur laa yunajisuhu shay inay bedelaan mooye oo ay cabitaanka ku bedelaan ama intay kaadi iyo lugtoy la galeen iyo ku bedelaan sidaa ay biyihii isku bedelaan mooye sida raajixa ma nijaasoobaya nijaasabaa ahaada laakiin biyihii hadday isbedelaan unbay nijaasoobaya ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen saasaan soo rajaxay can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii walaqa uu carabka geliyo alkalbu aygu fii inaa'i axadikum midkiin weelkiisa falyuriqhu ha daadiyo wuxuu afka geliyey wixii ka soo hadhay isaga way macna walyaqsilhu weelkana ha dhaqo 7 miraarin 7 goor ha dhaqo 7 jeer روح وريه مسلم باوريه والنسائي النسائي باوريه إذا ولغ وحل إله مركو يعني حيوان كأيجي يوحي لمده انتو عرب كجريو شيء وولي بقول لك نقاشيو أيال إذا ولغ أيجو مركو جريو متكين ويل كيس مركو عرب كجريو أما هعبو أما عرب كيو هكو أكيد وحميش قصة حريتاري 7 goorna waa ka طيب xadiidkaasi wuxuu faa'iideeyay oo hadda meesha loo keenay aygu xayawaanaadka kale waa ka gedisan wuxuu afka geliyo waa nijaasaha ahaadee dhaqmada iyo daahirintiisuna way ka gedisan tahayo 7 goor baa la dhaq 7da iyo carrada lagu dhaqi iyo ahkaamteeda waanu tagi doonaa baabka lagu sameyn doono laakiin hadda muhiimadu waxa weeye aygu wuxuu afka geliyo waa nijaas intaas waa weyn ayguna wuxuu kamid yahay xayawaanaadku kamid yahay marka isaga xukunkiisu waa khaas dugaaga kale waxa ku tusay xadiidkii ibn Umar laakiin aygu waa ka gedisan yahayo xadiidkana ku tusay طيب culimada qaarkoodna waxay uga qiyaas qaateen baalka la yiraahdo muxuu ahaa doofaarka laakiin qiyaaskaasi qiyaas saxiix ma sax doofaarku waa nijaas laakiin in 7 goor la dhaqayo dhaqitaankaasi wax daliil looma hayo 7 goor in la dhaqayo wax daliil ma leh culimada martayna qiyaasan ala al-kalb bayna laana nijaasatuhuma mughallada nijaasadooda nijaasa culus laakiin waxa la leeyahay ayga haas nasbu leh أما إسقي دوفارك إن دقيتان كودا الله يسقي قياس تضبضة ما هذا دقيتان كأصلك نجاسونا ولا دقي لكن تضبضة أي قوم باشكال أو يكون صاروا معنا طيب أي كان نجاسة نمديسة هي إنه سن نجاسة هي ومسألة خلافية من نجاسة مثل نجاسة ما نجاسة نمديسة لسموه أفس إلى صدح رأي علماء أوكل كثير ضمانتي والنجاس حتى لقطيس وانا مذهب الامام الشافعي هي احمد في احدى الروايتين مذهب كلوح وقباء والظاهر حتى عن اوفتي سي افكي سوى الظاهر فاحنا نجاس الى مجد وانا قول مالك في المشهور عنه امام مالك باقباء الشيخ الشافعي قل يكل الوحي إليه إن أنك لقادني عن أفتي سي أفكي سوى النجاس لكن لغرتي سئيو سيابيه سكال النجاس معه وأنا بدك أبو حنيفة في المشهور عنه هي رواية كالي أحمد وحانا صورتي شيخ الإسلام ابن تيمية أي مرك النجاس النمت كي سوى خلافية عند أهل السنة علماء دي وين مذاهب توا ورأنا نقول علماء qolay waxa jira meelaha fadhiyo waxayna aqoon jireen haday maqlaan meelaha majaalista kaga sheekeeyo oo yiri warkaas la sheegay ma maqashay oo maxaan maqal eeygi waa daahir baa leeyahay
qoliyo loo caasay mushkilada haysata waxa weeye waxay ka warhaynin cilmiga kutubta ku qoran iyo madaahibtii culimadii say ugu kala tageen qaar kamidana way ka warhayaan laakiin malqi karaan inay sheegaan baaba dhib ku ah hatta kutubta way ku arkaan laakiin inay yiraahdaan mas'aladan waa khilaafiyo culima qabta baaba dhibiba saasi macna mas'alada markii laga tago maxaa raajixa ma inuu nijaasayaha raajixa mise inuu san nijaasayn baa raajixa inta la gaarin horta mas'aladu waa mas'ala cilmi ah culimadu say ugu kala tageen mas'ala ahaan waa in loo sheego waa adiga sidii kula xoog badan markaa kadib aday ku taala adoon hawadaada raacay iyo madhabkayga sidan ahaa hadii daliilku kula xoog badnaado hawl ku taala waa laakiin amamka cilmi ahaan mas'aladu waa mas'ala saa u jirta saas macna طيب absad kutubta ugu fudud ee ka hadasha fiqh al-muqaranka madaahibta fiqigoodii culimada soo guurisa saasay u sheegaysaa mas'alada marka saasa la soo khilaafsan inuu nijaasay yahay waa madhabka jumhuurta inuu nijaasay waa sida loo badan waana sida raajix ila wallahu a'lam sida la xoog badan inuu nijaasay yahay laakiin madhab mu'tabar oo maliki yahay oo hadda iska ilaalinaynin saasi ma bal qaarkood ay qabaanba yaani wax weeyaan waaba la cuni karaa qaarkood qaba saasi ma adiladooda markaad aragto inaadan aad uga lug bixin baa laga yaabaa adoo nagleynahay markaad adiladooda gasho waxa laga yaabaa inaad ka lug bixin marka masaladu sidaas way macna طيب in hadii xadiiska nabiga ay ku sugan tahay sallallahu alayhi wasallam hal la dhaqo 7 goorna hal la dhaqo maxaad uga doodeen nijaasanimadkiisa waliyaha ka dooday ka muras waxay leeyihiin hal la dhaqo kama doodeen laakiin waxaan ka doodaynaa dhaqida la dhaqayaa in nijaasanimo ma ahe Allah nagu adoonsaday inuu ilaahay nagu adoonsado nijaasanimo aynan ahayna waxa ku tusaya nijaasooyinka caadiga 3 goor 2 goor caynta un baa la zuuliyaa laakiin 7 goor hal la dhaqo meeshaasi adoonsi baa ka muuqata nijaasa la dhaqayo ma ahe Allah nagu adoonsaday masaladuna waa ta'abbudi waana غير معقول المعنى macnaheedana lama fahmi karba nijaasa ma aha halkaas ay marayaan waa faham culimo iyo ikhtilaaf culimo i'tibaarti sulay adiga dhankii kula xoog badan oo ku taalo طيب سلادتي marka sidaas weeye amma dhaqitaanka iyo 7 mal dhaqi iyo yaa qaba iyo way soo socotaa طيب hadii sidaas la yiraahdo maadaama baabku uu ku saabsanaa xayawaanka hambadooda waxa laga doodayaa eyga hambadiisu ma nijaasa mise nijaasa ma jumhuurtii sida loo badan yahay mar hadii la yiri waa nijaaso maxay qabaan inuu nijaaso yahay wuxuu soo reebay qoliyaha dhahaya nijaaso ma ahana wuxuu soo reebay nijaaso ma aha bay qabaan oo maalikiyadii wixii lamid saasi ma intayna ka gudbin lafdiga ku soo arooray xadiidka oo ah fal yuriquhu haddaadiyo wixii hambada hal daadiyo lafdigaasi fi sahih muslim buu ku yimi laakiin culimada qaar kamida oo muhaddisiinta waxay tilmaamayaan lafdigaasi inuu shaad yahay shaadku waa nooc kamida daciifka nooc kamida sababtay uu shuduud ugu xukumayaan waxay leeyihiin ninkii la dhihi jiray nin kamida ardada acmash baa lafdiga la gooni noqday oo ruwaadi kale ku khilaafay ali ibn musir nin leeyahay marka ninkaas la gooni noqday waxa shuduud ku xukumaya lafdiga isaga ah ibn abd al-bar katani ibn mandah al-imam an-nasa'i uu ishaaraya lafdigaasi inuu shaad yahay fal yuriqhu laana nin baa la gooni noqdo ruwaadi kale ku khilaafay waana macnaha shuduudka loo yaqaanay leeyahay baabu su'ri al-hirri wuxuu baabu yahay bisada hambadeed bisada waxay hambayso oo intay cabto afka la gasho soo reebto man nijaasa miswataah عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت وحي أهيد تحت ابن أبي قتادة أبي قتادة ويلو ضلي أيا قوي صحابيات ويا بقاركود ليه قاركود وصحابيات بليه قارنا ويتكدوا ذي طيب عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت وحي أهيد تحت ابن أبي قتادة أبو قتادة ويلو ضلي أي هوستي سايد معنى حاسكي سايد بمعنى waxay warisay anna aba qataadata dakhala inuu u soo galay calayha korkeeda fasakabad markaasay shubtay lahu isaga waxay u shubtay wudu'an biyo uu ku weysaysto fajaa'ad waxa timid hirratun bisadbatin ama mukulal
تشرب حال أي عبيس منه بيه حقيس أي كعبيس بيه الله صلى الله ويسد الله وصف شميشه يعني أي بسد أرديسة تمسي يضط رتين كعب فأصغى مركاسو لحيي لها يدا الإناء أول كيبو لحيي حتى شربت إلى عبد ويل كيبو لحيي وأفكيبو حوغا وتشبيه سيقعبت معنا قالت كبشة وحيتي فرآني وأركي أبو قتادة أنظر أنا فيرين إليه إساق أنا محمد هيكون لي جايو أدو فيرين هيو يعني وقرت مركا إن الله يبنا أبي ويزيد هيدو بصدل الصين هاي فقال مركا سوحوا لي أتعجبين أن ما الله يبنت يا ابنة أخي ولالك جبدي سي ما الله يبنت ولالك جبدي سماه يعني وحويا ويل كيساقا صوما مركا وحويا صدق بويه لكن عربتها وحي تقانا يعني وحويا يا ابنة أخي ويل كان أديرك هو هي أدير إيوه ويسكرها أنا قصدت أسكرها هون كودا صدقت أدير بعد سكرك مركا من هذا الباب واحد طيب أتعجبين يا ابنة أخي فقلت وحد نعمها والله يا ابنها فقال مركا سأقول إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحوري إنها يضوى بصده ليست ميسنها بنجس نجاسمة إنها يضو من الطوافين كوا وريق بدن بكمتا عليكم كركين كوا وريق بدن والطوافات إيو ددك وريق بدن الطوافين ولبك وريق بدن والطوافات إيو ددك وريق بدن بكمتا هاي تاسو معنا جمع مذكر إيو جمع مؤنث روى حوري حديث كاستجا الخمسة شنتي باوري وقال الترمذي وحول حديث وحسن أو حسن صحيح حديث هو حديث وحكى صحيحي الإمام البخاري دارقطني مالك ابن خزيمة ابن حبان بيهقي حاكم عقيلي بغوي نووي ذهبي ابن حجر شيخ الباني ابن مندى علا أن لبلهي وإلا النقطي لكن حديثك علمه وحديث سجون أي ماذا صار ما صحيح يعني. إنها من الطوافين عليكم والطوافات طوافين توحل إلى هذا يعني خادمك سيد كيس أديقا طواف ليلة يعني خادمك سيد كيس مركو أديقا هي كما أكدوا سيو مرء وحضر صداء كيني يمرو أكتيس كدوي هو ليه هي يعني شقدها كفوقان أمر بأمر لغسين كراي مرو سوقلي مرو كبحاي يمرو لا جوجو marka waa u badan maxaa lagu shabahay marka bisadii sidii khaadimka iyo adeegaha guriga idin la joogo kale la mid oo kuma faaruqaysaba mar way ku soo gali way baxaysaa waxbay afka galin weelkii guriga bay joogtaa ma ka marna bacdahunna tawafuna alaykum waqiya ayad quraanka marka khadam oo kale adeegayaashiin oo kale la mid meeshaasi waxay tilmaamaysaa marka cillatul hukmiga tilmaamaysaa ruux waxa loo yiri bisad hadday weelka afka geliso ma nijaasaynayso oo waa lagu weysaysan waa la cabiyo waa la isticmaali cilladu waxa weeye way idin ku badan tahay oo way idin la joogid badan tahay gurigii kama faaruqayso haddii la yiraahdo marka meesha afka gelisaba ka dhaqa mashaqiya xaraj baa ku jira kaana adoo lagu yiri oo kala waa shaqaalahaaga ku shaqaynahay meeshii uu gacanta geliyo meeshuu afka geliyaba iska dhaqa soo mashaqiya xaraj ma bisadii marka waa adeego oo kala waa wax ka fakaraya ma baahan illatul hukmi bi marka tilmaamaysa min at-tawafin alaykum wat-tawafat saadaradeed ba culimada qaar kood waxay uga qiyaas qaateen bisada xayawaanaadka kale iyo cayayaanaadka guriyaha jooga in marna ayna ixtiraaskoodii iska ilaalintoodu ay adag tahay bisada uga qiyaas qaateen waana illa meesha ku jirto haddii cillada iyada loo ruqsayo ay tahay gurigii bayna ka dhaxbaxay xayawaanaadka la midkoo dhanna waa saas waxay afka geliyaan iyadii un baa looga qiyaas qaadan cilladaasana lagu dhisayaa way macna xadiidkan waxaa daliishaday culimada qabta bisadda hambadeedu inay daahir tahay afkeeduna uu daahir yahay shaafici iyo qeyrkii baana ka mid culimada iyada أوزاعي الثوري أحمد مالك ابن منذر إسحاق أبو عبيد يصحاب الرأي أبو حنيفة مويه جمهور تسكت علماء بدن كود باقوا بيصدوا إنه ظاهر أفكار ظاهر
حتى نجاسوين كوها عنده ودي واحد شيء عيان أي قفصتي يديك وحن بيأفك كل شيء لكن هذيك الدنت هذا ما أفك هذا هذي مركز نجاسة كو أركيز أي ويل كجلني سنة والنجاسة دي كهشنا والله قدك ودي النجاسة ضرت الضلال أما إذا أفك هذا هذه نجاسة عنده عنروف باك الضم بس وأفك وحباب مرحي أو حالة كلامه فاسمع معه مركز إن أين نجاسة هي الوسيلة اللي بدي أبو حنيفة علماء قار كم إذا واحد كتجان إن نجاسة هي وحين دليل سنة أحاديث ضعيف وصقنين الحديث بس تشيله وصقن حديث أبو داود الترمذي غيفة من حديث أبي هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب وإذا ولغ الهر غسل مرة بصد هذي ويلك أفك جنس هل مرة لا نقل حديث كاسي علماء قاركم المحدثين تصحيحين إياه حديث الله وقلادنا كان يسوي اسكمه رمانا إياه وما حيكون وحيلوجو جمعين كره إلا إلى هذا الحديث كان أبو قتادنا وحلوجو حنباريا إننا لازم أهين نجاسنا حديث كهل مرحلة بقانا وحلوجو حنباريا سيدا في عن على الإسكندق لكن لازم معه سيدا سلام الحديث ليسوع كينك وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وحيكور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيكور أنه النبي كان إلوها يصغي مدلحية إلى الهرة بصد حق هذا الإناء أول كل إنشري حتى تشرب إلى أي كعب ثم كذبنا يتوضأ ويسنشري بفضلها هنبض يدا وحي صور رتيب كويس سنشري النبي صلى الله عليه وسلم رواه الدارقطني بحديث كوريه حديث كاسي هو ضعيف بل ضعيف جدا مصرنا إنه النبي يقول انتو ويل ألحي أي كعبتي مصرنا الذي سنة وحوي لو الطريق بكوي لو الطريق بل لو أنه متروكة كجرة طريق وحا كجرة عبد الله بن سعيد المقبري أو متروكة كجرة طريق اللبان وحا كجرة محمد بن عمرو الواقدي أو إساقنا ضعيف محمد بن عمر الواقدي أيها كجرة إساقنا يعني ضعيف سيدا ثلاثة يبقى إمام الدارقطني حديث كمركو وريه موسى كأمسين وضعيفي شيخنا مؤلفك وحاف عنيد على أقل تقدير هدو حديث كالشيخ عدي وريسي حكم كيسان إنو سنك إيماني وأنا ميلها لقوم ملاحظين كم تابعنا وإمام الدارقطني عليه رحمة الله حديث كمركو وريه وحيد قال أبو بكر يعقوب هذا أبو يوسف القاضي وعبد الربي هو عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف من كان سوء ضعيفي وحديث كان ضعفي جسوكم وشيء مركا وحي أهيد إنه على أقل التقدير إنت أو قدره أو سوق قوريو إنه الدارقطني حديث وضعيفي سنة طيب باب اعتبار العدد لكن وحن كيف كافتومنا حديث كمعنيه كهرائنا كافلا صوما كهرائنا كافلا كان يسير ضعفي جسوكم باب اعتبار العدد في الولوغ أبواب التطهير النجاسات مين غري نجاسوين كطاهرين توضع أبواب تديوة وذكر ما نص عليه منها يوحي لعديو سعد ونص قصو أروري وكم إذا نجاسوين ظاهرين توضع باب اعتبار العدد عدد اعتبارين تيسو باب وياهي في الولوغ قليتانك لحظة في الولوغ قليتانك وإيغو أفك ويلك قليل عدد أما ترى إن لقاقيو تاسي اعتبارين تابي إنه وحكسو قال لذا أي بابي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحولي إذا قرتي شرب عبد الكلب أيبو في إناء أحدكم متكين ويل كيسم لحدي سمركو كعبو فليغسله هرق 7 تضبه هرق متفق عليه ولأحمد وحاوسنا ومسلم إلى مسلم طهور إناء أحدكم متكين ويل كيسة ظاهرينتيس أما ظاهر نقشديس وحوي إذا قرتي ولقى أفك جري فيه تحديث الكلب أن يغسله إنه دقه 7 مرات تضبقه أولاهن مد أبوه الرئيسانة رقمض أبوه الرئيسانة بالتراب عراء كله حديث كاسيدو كلماتك يا شافعي نسائي الماجة وصوصاري ومحوها هاي وريي حديث كاسيوحو تلمامي أو الشيء حديث أبو هريرة وصومرني أيجا نشاس النمدي سبحانك وانكسر هذا لكن هذا ماشي محلوك يعني
ayga wuxuu afka geliyo markii la dhaqayo 7 goor in la dhaqo ku tusay sidaana waxa qaba jumhuur ulama badankood baa sida ku tagay dhaqida 7 inay laazim tahay oo ka yar uusan ku daahir noqonaynin siyaada qaar baa ku dari doono xadiiska soo socda mar sideedaad buu ku dari doono dhaqma sideedaad ayuu ku dari doonaa macna 7 goor in la dhaqayo waxa khilaafay xanafiyada oo waxay yiraahdeen yani 3 goor baa la dhaqi karaa war xadiiskan maxaad ku khilaaftay waxay yiraahdeen Abu Hurayra xadiiska warinaya laftiisa baa waxa laga hayaa 3 goor inuu dhaqi jiro وما أبو هريرة راعي من الحديث كراعي ومسألة اللي هذا مرة مسألة أصولية قاعدة أصولية والنقرة وحنفية هي مذاهبتك الأسلوب خلافسين قاعدة ذا وحوي إذا خالف الراوي بما روى عند الجمهور العبرة بما روى لا بما رأى صمت راوي حديث كوريه هذو خلافه فعل كيس أما فتوى سبق خلافه جمهورته waxay qabaan waxa la qabsanayaa xadiisku wariyay ee isaga ficilkiisa ra'yigiisa la qabsan maayo xanafiyadu maxay qabaan al-ibratu bima ra'a la bima rawa bayni ra'yigiisa iyo wixii fiqi isaga la qumana lagu arkay in baa la raaci maxay yeelay waxa dhici kartay leeyahay xadiisku inuu markii dambe laba qumanaan waayba ama agtiisa ka sugnaan waa marka wixii isagu sameeyay in baa la qaadan bayni saas daradeed waxay leeyihiin Abu Hurayra ficilkiisii 3 buu ahaa mar hadduu ficilkiisii xadiiska khilaafayna ficilkiisa aan qabsanayna marka adiga aan la yaabin marka aad aragto Xanafiyo oo meesha mar Xanafiyo xadiiskii bay ku tumatay hadhiin meeshan qawaacid al-istidlal baa la isku khilaaf haddaad fahanto qawaacid istidlaalka ay aymadu isku khilaafayaanna iyo sida ay wax u kala daliishanayaanna wax badan baa culayskiisu ka fududaanay hadii kale waxa weeyaan cilmu al-qalili يقلقل صاحبه هذا وحوغا يرخيص انت يرتي تقاني ان بعضك او دن دونيس اناد ku caburiso انت يري وصفينه ادو قربان idin sheeg safina inta noo akhri ba salaada ruux markuu tukanayo safina waxaan ay maan akhrisan marka ruux markuu salaada tukanayo safina miisaankiisa saaraya waxaan leeyahay روحني سفينه سيدنا ولهاي maxay salaadiis u khilaaftay waxaan safiinahayn marka ma aqaan marka dadka hada safiina oo wada saarto dib baa ku qabsan waa inaad ogoshahay istidlaalaadka aimada iyo say isu khilaafeen iyo ala aqalli taqdiir waxay ka fududaynaysaa inaad dadka iska saarto wixii ku khilaafay ahkaam saarto taasi wax badan ka fududaynaysaa taasi waa fiqhiga leeyahay fiqh al-muqaranka iyo istidlaalaadkuna يعني وحوي فوائد هذا قيب كمده معه marka xanafiyadu xadiiska waa khilaafeen laakiin asalkaasi ku khilaaf garow shamaleeyeen min haythu al-istidlal iyo fiqigoodi iyo fahamkoodi ijtihaadkooda maajuurin bay ku yihiin ama ka mas'ala ahaan waa laga xoog badan intaan dhig karnana waa inta waa laga xoog badan waana la khilaafi laakiin lagu kala xitagi maayo saas macna hasaladaasi waa taa masalada labaad waxa weeye oo cadadka weetaa iyada سلالة عدد كلا نقيه تاي هذا وحكلوا حديث وفائدين يا إن عرّ له قدق أيضا هو مسألة خلافية عرّ له قدق فقال قاركود وحيليه إن عرّ له قدق ما بيك بس له قاب سنة وما حد حديث كانوا خلافه وحيد هذه الروايات كعرّ الشيء يا إسخلافه ومضطرب وهذا ضعيف حديث كتصدبه أم بصح لكن عرّوا روايات كذا وإسخلافه ميد وحيث dhaqmada ugu horeysa ku dara mid waxay tiri mid ugu dambaysa mid waxay tiri saabacada mid waxay tiri thaaminada marka riwaayadkaas waa mudarib agtanada ma sugnayde biyo uma marka isticmaalayna laakiin sida sawaabka waxa weey riwaayadka ku soo arooray carra in lagu dhaqo iyo carradu meeshay galayso awood ahaan ma sinna ilaan idraabka waxa la yiraahdaa markay isku awood yihiin Soomaa awood ahaan ma sinna waxa xoog badan riwaayada dhahaysa ulahunna biturab midda ugu horeysa carra ka dhig waxay ka xoog badan tahay dhanka ruwaada warisay oo badan iyo dhanka xifdiga oo ay ka xifdi badan yihiin kuwa khilaaf
ukhraahunna way ka xoog badan yihiin ihdaahunna waa daciif ثامنة حديث كله يكون صارته أو تجدونه ساس تراد يدو حراجحة إن عرّ له قدريو عرضنا أي رقمنا أجور الزجلس ساس راجح هو حق معنا طيب رقمنا أجور الرئيس إن الجلسه سيدا سحوك بدن أو لفظ جاء سحوك بدن أما قوة ضمن إن الجليو ولا حق بدن هاي لفظ يكون صاره وعن عبد الله بن مغفل قالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوح وأمري علماء رجع أو شو هاي رجع أطباءه وأيام ضمن معاصرين أو إيجا يعنوف تيسية أفكيسة محوها هاي كسمي تحاليل كسمي وحيليهن عرف كيسية أفكيسية وحي حنبارسيهن بكتيريا ذا سو حيليهن واحد دلاء كلية تعرضه حتى وحيالها كلمة كيمي كذا مدي لكرتينيه لكن عرضه بش وتقريبا ضبق معاصر كاوه ضبق معاصر كاسدة المامي صار با يعني وحيليه الحديث كان يوحو كمدي هاي معجزات علمية النبي صلوات ربي وسلامه عليه سيدة كتريها طيب وعن عبد الله بن مغفل قال وحوري أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحو أمري بقتل الكلاب أيضا لا ينتظروا أمري أيضا هل الله يريد صوبت كل من الوحي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بالله بلنسنا يسوي جبريل أي بلنسيهين أي جبريل إمام وهي وقت بلنسنا مرضا بمركز السلام بيقولون وجبريل صوني بلنسنين ومحد يقول إمامي دي أي بقول كتير اللي يقول أي يربع بيش يقول بوجر ميل أي كتير أنا نقول مصاب الله دان ملائكين مركز سو أمر أيده هل الله أيده هل الله ابن رسول الله أمر بقتل الكلاب ثم مركز كذب وقال وحي أمرك بحي كذب وحي ما بالهم وبال الكلاب حال قاضي حال كأيد محي يجي أي محاك على كلامه ضدك أيد محاك على كلامه حي الله يصنع بمعنى ونسقي واحد أمر كيه هو ولا بدليه لا يصل مري ومحايد كجليه كلا دم بيمر محايد كجلا دم بيس دايم بيمر الدليل ما بالهم وبال الكلاب ضدك حال كود محيه أيد حال كود محاك على كلامه الله يصنع ثم كذبنا رخص النبي بوح الرصي في كلب السيد وقعد أيجد لو وقعصل وكلب الغنم هي أرجع أيجا إلالية أرجع أيجي سواء أرجع يعني أيجا إلالية وكواردية محوها هاي حيوانات وقال وحول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرتي ولقى أفكج لي الكلب أيجو في الإناء والك فاغسلوه دق 7 مرات تضوج دق وعفروه كتشبيه الثامنة مد سديدان مركز سديدان بالتراب عرض كتشبيه رواه الجماعة جماعة باورية إلا الترمذية والبخاري مويه قاري الترمذي مويه جماعة باورية حديث كان عبد الله بن مغفل دقيتان ككتغ يا مركز سديدان مرن بدن با كجير ووحي قاركود ليه حديث كاسي روايات ككلتي حديثكو خلافيا oo ka dhigaya 7 ka dhigaya midda koobaad ee ugu horeysana carra ka dhigay sideedaad buu kordhiyay hadii midda sideedaad laga dhigo carrana waxa ka laazimaysa mid sagaalaad qasab laana midii sideedaad hadii carra laga dhigo soo carradii weelka in laga dhaqama mid sagaalaad bay laazimsan bay leeyahay saas daraadeed xadiiskan way dureen qaarkood كبحوا دوركيس ميل بيت كسو عليه لكن امام احمد في روايه عن مالك با كتغي ان دقموين كلا تغي سيديد وحديث كان عبد الله بن مغفل بي قفصدين الامام الشافعي عليه رحمه الله اسغو كعذر دارته حديث كان عبد الله بن مغفل او هو بوايسي حديث اميد السيديد العرف كججبيه اني سوغان تahay wuxuu la anigu ma hubo saas baradeed xadiiska kale iskacab bal qabsan buu imam Shaafi'i alayhi rahmatullah tayib marka dood badan baa ku jirta xadiiska Abdullah ibn Mughaffal sugnaanteedana qaar baa ka doodaya qaarna waxay xadiisku waa xadiis mustaqil oo madax banaane isagiyo kii hore yaan dood laga dhaxaysiino yaan la isku dhufan sidan ila banaantan sidan loo waa la isticmaali karaa sidan waa la isticmaali karaa halkaas ay marinaa macna وفي رواية لمسلم وحاوسنا في رواية حد واحد لمسلم أيضا وأوتجدون أيضا يا أرمه هذه برنامج كده وأوتجدونا
لكن هذا مقصودكم ما كراعنا باب كان مقصودك الله كان يوحوي يعني ايغا marka la dhaqayo wuxuu afka galiyay tiradee la dhaqaya intee goor baa la dhaqaya inta u baahada meesha u keensan wa fi riwaaya kala dhaxeed waxa oo muslim u sugnaatay warakhasa nabigu wuxuu ruqseeyay fi kalb al-ghanami eeyga ariga eeygiis wa eeyga ariga ilaali wasaydi iyo ugaarsiga ama ugaadha eeygeeda oo eeyga lagu ugaarsado ugaadha lagu diro soo qabta والزرع iyo beerta uga yani eeygeeda wa kalbi zar'i iyo eeyga beerta ilaaliya isaga saddexdaas uu nabigu ruqseeyay salawaatu rabbi wasalaamu maxaa laga wadaa uu ruqseeyay wuxuu ruqseeyay oo ruqsadu ay ku saabsan tahay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu reebay eeyda in la yeesho oo la kaydsado oo ku joogaan oo wuxuu yiri ninkii eey yeesha oo kaydsada oo dhaqada ajirkiisa maalinkiiba waxa laga nusqaaminayaa wax la qiraad qayb weyn ba ajirkiisa maalin walba ku ay sidaas daraadeed eeyda lama kaydsan karo lamana haysan karo lamana dhaqan karo laakiin wuxuu nabigu ruqseeyo ka soo reebay wuxuu ka soo reebay oo la haysan karaa waa saddexda eeyga muxuu ahaay ariga ilaaliya midka lagu ugaarsaday muallamka ugaadha soo qabtay lagu diro iyo midka ilaaliya beeraha adiga waxa tiraahdaa eeygi markaasi baahi looga maarmay ama waardi ama wuxuu looga maarmay mas'aladaasi hadda baabkeena ma waana u tagi doonaa insha Allah taala eeyda iyo ahkaamteeda baab gooniyu ku keeni doonaa laakiin maqsuudku hadda waa inta hore oo ah eeygu wuxuu afka galiyay intee goor baa la dhaqayaa intaas maqsuudka hadda ama ahkaamta kale meesheeda ku imaan doontaa biidillah tabaaraka wa taala باب الحث والقرص والعفو عن الأثر بعدهما وحباب يهي الحث تشبنتي محمد باب الحث ده حقدي باب يهي نتشاسد الله حق ماشي قاعد سي معناها مقال كذا ايوه محوها عين كذا اللزول والقرص هي تشبنتي inta la qooyo faraha fiidooda insa loogu jijibiyo yaani wax weeyaan ayaa la yiraahdaa qarsiga la yiraahdaa saas macna hattigu wa huqid qarsiguna inta la qooyo in la isku jijibiyo la isku macnaha yaani la isku cilaliyo طيب والعفو يعفن دافس عن الاثر نجاسه raadkeedi la iska dhaafo بعدهما حتىga iyo qarsiga kadib markii la xaqo hadana biyo inta lagu shubo lagu jijibiyo marka kadib hadii raadkiisii muuqdo la kari waayo waa af taas macna midabkii waa sii muuqda ama urkii waa sii muuqda ama dhadhankii yaani jaasada sii jira waana yaani laga shaqeeyo waa la kari waayo marka kadib wal afwi an al-athari ba'dahuma raadka soo haray عن أسماء بنت أبي بكر قالت وحيتري جاءت وحاتم امرأة إلى النبي أتم صلى الله عليه وآله وسلم فقالت وحيتري إحدانا مدى يعني دمر كميد كميدة يصيب وحا أصيب النبي الله ثوبها مرد يدا وحا أصيب من دم الحيضة حيضة دي جيدا وحكا أصيبا وحكا سوقانا كيف تصنع سيبا صنعينس إحدانا مدى يصيب وأصيب يثوبها من دم الحيضة ديك حيض كقارتي أصيبه كيف تصنع سيبي سمينيسا به مرضى سيبي كسمينيسا مرضى ديك قاري وعادة قاري سيبي يلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحته ويحقي تحكه ابن خزيمة الزهري وأنا بمعنى تحته حتى بمعنى الحكي وحقده سي عين اللوزوري ثم كدبنا تقرصه ويتشبين بالماء بيه كوتشبينس قرصنا وانغا سو شيغنو وا ميشه ديغو ku yaalo in faraha fiidooda lagu jijibiyo si muxuu ahaayay dhiigi marada dhex galay ay biyuhu u gaadhaan
saas macna nijaasadii meesha dhex gashay si biyuhu uga daba galaan oo meeshii u gaadhaan ayaa laga wadaa taqrusuhu bilma yani waa jijibinta biyaha lagu jijibiyo thumma kadibna tandahuhu way daqaysa ay taqsilhu sida khatabi ibn hajar iyo maraya marka kadibna markay biyo yar intay ku shubto ay ku jijibiso tandahuhu bihi badnaabay ku shubaysaa markaas ay ku dhaqaysaa way raacinaysaa marka macna thumma kadibna tusalli way tukani fihi marada dhexdiisa ku tukanaysa muttafaqun alayhi طيب xadiiskaasi wuxuu inoo faa'iideeyay waana xadiidka uu tarjumada ka qaatay nijaasadu markay meesha gaadho dhiigu ka hadlay laakiin nijaasada kalena uu uga qiyaas qaadanaya waa in la xoqo biyaha lagu jijibiyo si ay u gaadhaan meeshii ay galeen nijaasadu gaadhay kadibna biyo lagu shubo oo lagu daahiriyo wafihi xadiidka dhexdiisa waxa ku sugan buu sheekhu yiri daliil ala anna dam al-hayd dhiiga haydku la yu'fa ina la afiyeen an yasirihi inti sayar wa in qallah wa yarade saasu daliil dhiiga caadada hadda inti sayar ina la dhaafayno illa baqa lazim saasu daliil li'umumihi hadithka umumkiisa darteed xageen ka qaadanayna hatta inta yar in la dhaqayo waxaan ka qaadanaynaa nabigu ma kala qaadan xadiiskuna waa camimay sooma xadiisku ma kala qaadin wax yar iyo wax badan umumkiisa ku tusma wa anna taharatu sutrati waxa kale xadiisku ku tusaya buu sheekhu wa anna taharatu sutrati asturka daahirnimadiisu shartun wa sharti lis-salati salatu sharti buu yahay sutrada muxuu ka wadaa bimaana marada awradaada asturaysa ee salaada aad ku tukanayso waa sutrada saas ka wada ee sutradii la soo dhigahay marka salaada la tukanayo kama wado saas macna wa anna taharatu sutrati marada awrada aad ku asturayso daahirnimadeedu shartun inay tahay lis-salati salaada inay shardi u tahayna masaladana xadiiska waan ka faa'iideysanay waxaan ka faa'iideysanay maradii dhiigu gaadhay ilaa laga daahiriyo yaa lagu tukani ba xadiiska muuqata sooma tan waa ka faa'iideysanay waxa kale oo ka faa'iideysanay wa anna hadhihi an-najasati nijasadan wa amthalaha iyo nijasooyinka lamida la yu'tabaru yani lama i'tibariyo fiha dhahda turabun arra lama i'tibariyo tana waa laga faa'iideysan wala adadun tirana lama i'tibariyo la fiirin maayo nijasada noocana iyo nijasooyinka lamidka tiro go'anna hal la dhaqal dhihi maayo oo kuma soo aroorin arraha lagu darana la dhihi maayo oo kuma soo aroorin meesha aan ka baahnay tirada iyo carraduba eeyga nijaasadiisa khaas ku tahay xayale nijaasadii la dhaqay nabigu ma dhihin carra ku dar intaas oo goor dhaqana ma dhihin nijaasooyinka kalena tan ay la mid tahay macna waxa kale oo ka faa'iideysana xadiisku ku tusaya wa anna al-ma'a biyuhu muta'ayyinun wa mid aynoobay oo khaas ku ah li izalati an-najasati nijasada suulinteeda waxa kale oo xadiiskan ka faa'iideysanayna nijaaso haday timaado waxa loo isticmaalay lagu zuuliyo waa umbiyo wax kale oo zuulin kara ma jiro kana waa ka faa'iideysan xageen ka qaadanay waxaan ka qaadanay nabigu markay gabdhuhu ku yiraahdeen maradii seen u dhaqnaa ay dhaheen biyo ku dhaqa biyo buu u sheegay wax kale oo daahiriye haduu jiro oo u sheegay laabule saas u dilishanay marka waxa wax daahiriye waa umbiyo mas'aladaasi baabkan uu sameyn doona soo socdo maxaa wax lagu daahiriyaa markuu nijaasoobaan baabu soo wada macna وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار كودا يدا قالت وحيت يا رسول الله رسولك إلهي ليس لي مصبنان إلا ثوب واحد هل مرموي وأنا أنقنا أحيض وانكحيلا فيه مرضى بحيدا عادة كتما أنوقبا أيام مرضى يحكو عادة طيب طبعا دي مركي عادة سنة دي مرضي قبتي وهي عادة دي بقاري سوا صحابة الضرب بدل ما تشيرينه مد بابا مرضى هيست mid waxa ba jiray xataa maraq umano jirkeeda wada gaadhay baan haysan qala wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam fayda tahurti hadii aad daahir noqoto oo dhiigu ka go faqsili dhaq mawdi'a dami dhiig meeshu ka soo baxay dhaq may mawdi'a dami dhiig meeshiisa marada uu ka gaaray dhaq taas macna meesha marada uu dhiigu ka gaaray maradii bay rabtaa marada meesha dhiigu ka gaaray meeshaas dhaq ثم كدبنا نصلي كتك فيه مرضى دحيده كتك كدبنا كدحت قال وحيت يا رسول الله رسولك إلهي إن لم يخرج هدوسا بحين أثره ديك رات كيسو هدوسا بحين
ديك راتكيسي موقالكيسي أركيسي راتكيسي هدو بحي ويكور قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك وحا خغفلا الماء بيو ولا يضرك كمدبي أثره راتكيسون كمدبي بيا خغفلا بيا هداد خدقلو وحي أذكري ويدو راتكيسا دب ملب كمدبي روى أحمد باوري وأبو داود باوري كذلك بها باوري حديث كني في حديث هو الأمرنسية وعلماء الضعيف زوحة كمذا الإمام النووي ابن ملقن ابن حجر في سنده يسجن أبو ضعيف في بلوغ المرام ترمذي مركو نسبية كذب لكن حديث كتب مورنين وهمي وهي حديثه لكن سيد الراجح هو سجيه الشيخ الباني عليه رحمة الله عدد من كتبه هو صحيحي وحديث سجون وعن معاذة وحل قولنا يا معاذة رضي الله عنها قالت وحي تري أرض يدي وحي أهيد عائشة قالت وحي تري سألت أنا وحي يقرأ عن معاذ هذو سائد قرية صحمة عن معاذة وصح معاذة بن عبد الرحمن وعائشة أرض يدي الأسباب جدا وعن معاذة قالت وحي تري سألت وحي ويدي عائشة رضي الله عنها عن الحائض ما ويديه هوين إذا عادة قبط تاسو يصيب وأصيب يثوبها مرض إذا الدم ديق وقال يصيب قالت وحي تري تغسله ويدقيسا فإن لم يذهب دوسا تجن أثره ديق الرات كيسي دوسا تجن ما كل دقة كذب فلتغيره رات كي هبدشو بشيء وحونها كدوري سوء من صفرة شاء من صفرة مدب شاء الله زعفران كي ورسك مدبضت شاء الله هكبدشو ساسيت المعنى وحوي ديجا ماشي كم مقدين لكري واي على غلي تقدير هذا سكر أو كري ويدي ميدب كلام ماشي صار سيون رات كيسون وتركرمو يا ميدب كيس معنا قالت وحي تري ولقد كنت وحنا هابيتي أحيض من حيشة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 حيض سد حيضا حيض شربت جميعا وذكر لا أغسل حالا نتقين لي أنيق ثوبا وحمرا أنا نتقين لي أنيق حارو إيسو ناضي ثوبا مرا أنا نتقين بيت صاص معنا وحد يحكي سد عادة إلى إمران هو ذكر وبيد وقت جديد تمت مرضي أن قوينا أنا نتقين طبعا قراءة دي مركا وحي كوضع هواني ذو مرضى أي قبطه مركا عادة قبطه عادة مركا يقول عايز مرضى أي قبطه هذين المركا أوجين إنا يقاري ديجو قاري إنا يدخل اللازم كبار لأن أصلا صوت المعنى وحي استعمال الشرين وحيالا أي ديجا سيقع دوران صوما أو كرمائية وحيالا مع عصوكلا مركا مرضى الرقمة ذو وحي واجب المركا أوجاته إنا يقاري ديجي مركا إنه قاري مركا أوجاته مركا بيدق أما وان قوي وان كشك اسمه هاي أما واحد قارين كبح وركاسه شكي واحد شكي قاسي صامنا وحكى له لقى فهمي ديدي كيدونا مركي عادة قبطه إنه سن مرضى نجاسين نجاسنا ما واحد نجاسين يوديك يمشوا قاري بس ساس معنا أحاديث المحود اللي شذا شيخ وحود اللي شذي حديد يجي لرقه أو لحقه أو لجود ذهله أو زولين تيسال لسكوت تحلل شيء لنا كريواي وحي مركا زولي واي أثر فرها لقى قاضية سيدي سالي سجدين مرضينا ولا استعماله يا معنا ساسوي حديث أبو داود رواه أبو داود باوريي حديث كوا سجيه هاي طرق يا متابعات من الشيخ الباني عليه رحمة الله كو صحيحيي وأنا حديث سجوا الإمام الشافعي بحديث كان كنت معنيه إن أي محو أهاي أين لازم أهين لكن وحقو مري هذه الشيء أذك اللي هي لكتره والله حقه شيء قاعد هلا استعمال حتى هذاك عنك الزولي وين ساس معنا هو لازم وكذي وأنا قدوس حديث مقيس وسجن وأحمد أهل السنة كويسو صاره ترمذي موي أو صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم حكيه لحديث مقيس بن محصن حكيه بضلع بكوي بصلع واغسليه بماء وسدر وحير كحق دي قماشو قال واحد كحق لا بصلع واحد اللي هذا دغح كقادو كحق كدينا واحد كدقدا بيو iyo gob ku dhaq gobkuna waa saabuunta kala wax saabuuntii waagaas marka dhagax u qaado wuxuu isku day markii hore gacanta u isticmaalalay haduu dabcan ay zuuli weydo dhagax iyo wax adag ku isticmaalo ku xaq kadibna saabuun iyo waxa heli karto ku dhaq inta kadib hadii asarkii raadku zuuli waayo markaas waxa way maradiina loo tuuri maayo maradana la goyn maayo waxa way macfi way markaas عفوا وصات يضاب الله استعماله لكن سيدة عائشة رضي الله عنها يتلماميسو وحوقات إيقا ميشا كم مقضى
بصورة دي سحنتها هاي ميدب كله حتى هلا صار ميدب كله حتى شالله أكور كسر تاسي محاوي محجير موجنس باب تعين الماء ها هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه